Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkayga waan isalaamay maanta videogayga waxaan iisoo diyaariyay wadahadal af ingiriisi ah conversation in badan baa iga dalbateen conversation noo soo gelaya tidhaahdeen maanta waan iisoo gelin doonaa insha allah wadahadal af ingiriisiya haddoo kadib af soomaali nagu sharxi doonaa darsigeena intaas waaye hadda aan darsigeena bilowno. Oh Yusuf, you look exhausted. How's your week going? Honestly, Noura, it's been incredibly hectic. I have back-to-back meetings since Monday and I still have 3 reports to finish before Friday. That sounds overwhelming. I totally understand though. My schedule has been just as crazy. Actually, speaking of busy weeks, did you hear what happened to Asha from accounting? No, what happened? Is everything okay? Well, it's quite a story, actually. So you know how she's been stressing about finding a new apartment, right? She's been searching for months with no luck. Yeah, she mentioned that. The rental market is tough right now. Exactly. So yesterday she was having lunch at that new cafe downtown, the one near the train station, and she was feeling completely overwhelmed about the whole apartment situation. I can imagine. Moving is stressful enough without added difficulty of finding a decent home. Right? So she's sitting there looking as stressed as we do right now when this woman at the next table overhears her conversation with her mom about the apartment hunt. Oh, this sounds like it's going somewhere interesting. It gets better. Woman turns around and says, "Excuse me, I couldn't help but overhear. Are you looking for one-bedroom apartment?" Asha was a bit surprised but say yes. That's quite forward of a stranger, but I suppose sometimes you have to take chances. Exactly my thought. So it turns out this woman is moving abroad for work next month. And she has this beautiful apartment that she needs someone to take over the lease for. No way, what a coincidence. I know, right? It gets even better though. It's literally 2 blocks from Asha's office, has a balcony, and the rent is within her budget. That's amazing. Sometimes the universe just works in mysterious way, doesn't it? That's exactly what Asha said. She told me she couldn't believe how everything just fell into the right moment after months of hectic apartment hunting and feeling overwhelmed by all the rejections. This just happened out of nowhere. Did she take it? Of course. She's moving in next weekend. She called her mom right there in the cafe, share the good news. The woman she met, Lisa, I think was her name, even offered to leave some furniture behind. That's incredible. It's like all her stress and worry just melted away in one conversation. Exactly. And you know what the funniest detail is? Asha almost didn't go to that cafe. She usually brings lunch from home, but she forgot it yesterday morning because her week has been so hectic. So if she hadn't forgotten her lunch, she never would have met Lisa and she'd still be apartment hunting. Right? It's funny how life works sometimes. One small change in routine can lead to such a big difference. That really sets things in a new light. Maybe our hectic week aren't all bad. They can lead to unexpected opportunities. That's a great way to look at it. Speaking of which, how are you handling all those reports? Do you need any help? Actually, it's really kind of you to offer. I think I can manage, but it might be worth staying a bit late tonight to get ahead of things. Well, you change your mind, just let me know. Sometimes a fresh set of eyes can make all the difference when you're feeling overwhelmed. I value that. You know what? Hearing her story actually makes me feel a bit better about this crazy week. Really? How so? Well, maybe something good will come out of all this chaos. Maybe I'll meet an important client or learn something new or who knows what else. Now that's the attitude that I like to hear. You never know what coincidence may be waiting around the corner. Exactly. Thanks for sharing that story, Noura. I needed that outlook today. Anytime. Now shall we get back to our hectic schedules? Let's do it, but first, I think I need another coffee. Oh Yusuf, you look exhausted. Yusuf, daal badana ka muuqda. Exhausted يعني very tired إلى معنى tahay. Markaas kadib waxay leedahay, how is your week going?
يعني siduu buu u socdaa isbuucaaga markaas ku jawaabaya honestly Noura it's been incredibly hectic يعني run ahaantii Noura waxay ahayd isbuuc aad u mashquul badan hectic مش aad u mashquul badan ila macna tahay iyo wuxuu yiri I have had back to back meetings يعني waxaan lahaa shirar dib u noqosho leh since Monday tan iyo Isniintii and I still have 3 reports to finish before Friday iyo waxaan hayaa 3 warbixin oo aan dhammaynayo ka hor maalinta Jimcaha markaas ku jawaabaysa that sounds overwhelming يعني waxay la macno tahay taas waxay u muuqataa mid aad u adag overwhelming aad u adag aad u badan camal ila macno tahay dawa macnay leedahay markaas dhahaysa I totally understand though يعني gaabi ahaanba waan fahmayaa in kastaba ila macno tahay my schedule has been just as crazy يعني jadwalkaygaba sidaas kaleeta u waalna mashquul badan oo ahaa ila macno tahay asadahaysa speaking of busy weeks anako ka hadalna yani isbuucyaasha mashquulka badan did you hear what happened to Asha from accounting ma maqashay waxa ku dhacay Asha oo ka shaqeysa meesha xisaabinta yani accounting ka shaqeysa ma maqashay waxa ku dhacay ila macna tahay markaas uu leeyahay no what happened is everything okay maya maxaa dhacay wax walba ma fiicayn ma saxba uu yiri markaas leedahay well it's quite a story actually so you know how she's been stressing about finding a new apartment well it's quite a story يعني waxay la macna tahay waa qiso yani camal ah inaan ku sheega yani waa sheeko dheer oo inaan ku sheego ku faahfaahiya so you know how she's been stressing waa ogta sida ay stress haye inay guri raadsato culays saartay inay guri raadsato oo hesho kasadasa she's been searching for months with no luck yani ayada waxay raadinaysaa guri raadinaysa ilaa biloyol bay guri raadinaysay with no luck yani nasiibna kuma lahaanin yani guri ma helin weli ila macna tahay markaas uu leeyahay yeah she mentioned that the rental market is tough right now wuxuu yiri way ku dhawaaqasay way ii sheegtay waa maqlay saas markay dhahaysay suuqa oo kirada aad buu adag yahay hadda uu yiri rental market is rental yani kiraha market suuqa is tough right now tough yani uu adag yahay waa sacab ma la helo camal ila macna tahay markaas leedahay exactly waa sidaas so yesterday she was having lunch yani shalay ayadoo qadaynaysay cafeteriada cusub ee barnamaha magaalada ku yaala that new cafe downtown barnamaha magaalada you know that one near the train station ka u dhow saldhiga tareenka she was feeling completely overwhelmed yani waxay dareemaysay murugo ku saabsan about the whole apartment situation ku saabsan xaaladda guriga oo dhan markaasuu leeyahay I can imagine moving is stressful can imagine yani waan qiyaasi karaa moving is stressful guritaanku aad buu culusay waa stress badan yahay enough without the added difficulty of finding a decent home yani guritaanku wuu culusay adoo kusoo darin finding a decent home yani guri la aqbali karo guri wanaagsan decent ila macna tahay tanka waa dhib guritaankan waxaa kasii dhibsan inaad heshid guri fiican oo wanaagsan ila macna tahay jumlada markaas leedahay right صح so she's sitting there looking as stressed as we do right now isla markii ayadoo fadhida halkaas sidana kaleeta u muuqato stress inay culus tahay in stress hayo these women at the next table overhears naagta oo joogtay miiska xiga ee maqashay sheekadeeda overhears her conversation with her mom about the apartment hunt kedeeda maca hooyada aydan la sheekeysanaysa ee ku saabsan guri raadinta hunt yani waxay la macno tahay raadin kadaba orod uu la macno yahay markaas ku jawaabaya all this sounds like it's going somewhere interesting yani tani waxay og tahay inay u socoto meel xiiso leh yani sheekada meel xiiso leh inay u socotaa u muuqan tahay easy wad camal ila macno tahay jumlada ni ku jawaabaysa it gets better kada yani wasii ficnaanaysa camal the woman turns around and says excuse me naagta midse islaanta ayaa soo jeesatay oo tiraahday iga raali ahoo I couldn't help but overhear yani waa isqaban waay laakiin waa maqlay waa dhagaysta sheekadiina
Are you looking for one bedroom apartment? miyaad raadinaysaa? Are you looking? miyaad raadinaysaa, miyaad fiirinaysaa guri hal qol jiif ah miyaad raadinaysaa ay weydiisay. Asha was a bit surprised but said yes. Asha way yaabtay laakiin waxay tiri haa waa raadinayaa ay ku tiri ku jawaabtay. markaasuu ku yidhi that's quite forward of a stranger. yari waxaas oo wax xarakad yani inay hadalka maqasho hadalkaaga kusoo jawaabtay wax xoogaa yani qof shisheeye aan laga sugeenin. But I suppose sometimes you have to take chances. laakiin waxaan u maleynayaa inaa mararka qaarkood ay tahay inaad fursadaha qaadato, fursadda ku timaado inaad qaadato. markaase tiri exactly my thought, dhib ahaan fikraddeeda camal waayo. So it turns out this woman is moving abroad. haddaba waxaa soo baxay in gabadhan mise islaantan inay bannaanka u saafiri doonto, u baxi doonto for work, shaqo ahaan in bannaanka u baxi doonto, u saafiri doonto next month, bisha soo socda. And she has this beautiful apartment. iyo waxay haysataa gurigan aad u qurux badan. yani waxay haysataa aqal aad u qurux badan oo ay u baahan tahay and she needs someone to take over the lease for. yani qof kale u baahanta inay ku wareejiso heshiiska. so lease waxaa waaye heshiiska guriga. to take over inay ku wareegto qof ku wareegaya, someone to take over yani qof inuu ku wareego ila macno tahay. the lease for heshiiska oo guriga inuu la wareego ee rabta qof saasay raadinaysaa. markaasuu leeyahay no way, what a coincidence. no way, sinaba ma aha, caadi ma aha camal ila macno, sinaba ma aha. what a coincidence waa sudfad, yani sidee isku timaada. markaasay leedahay I know right, waan ogahay sax. It gets even better though, the apartment يعني waan ogahay welibana sheekada si fiican sii noqonaysaa. apartment aqalka is literally يعني xarfi ahaan 2 blocks from Asha office, 2 block oo u jira xafiiska Asha. has a balcony يعني wuxuu leeyahay balkoon and the rent is within her budget. kiradana waxay ku jirtaa miisaaniyaddeeda, yani miisaaniyadda haysato, yani lacagta ay rabtay camal miisaaniyaddeeda uu gaarayaa kiraheeda. so budget waxay la macnata miisaaniyadda. markaasuu leeyahay that's amazing, taasi waa wax aad u fiican. sometimes the universe just works in mysterious way, doesn't it? sometimes the universe yani mararka qaarkood koonka mise adduunyada wuxuu u shaqeeyaa si qarsoodi ah. doesn't it? maynan ahayn ila macno tahay uu leeyahay. markaasay leedahay that's exactly what Asha said, taas waa sida camal oo tiri Asho. she told me she couldn't believe, waxay ii sheegtay inay she couldn't believe yani inaan aamini weyday, ay rumaysan karin how everything just fell into the right moment, sida ay wax walba ugu dhaceen daqiiqadiiba sida saxda ahaa. after months of hectic apartment hunting, kadib bilo badan oo guri raadin aan ku jiray, and feeling overwhelmed by all the rejections, oon dareemay culuska dhammaan diidnimada aan markasta helaysay. this just happened out of nowhere. tani waxay ka dhacday yani waxa igu dhacay waa wax hal mar iska imaaday, meelaan jirin ka imaaday ilaa manata jumladda. markaasuu ku leeyahay did she take it? may qaadatay yani guriga ma qaadatay ila macno tahay. markaasuu ku leedahay of course, طبعا she is moving in next weekend, waxay guraysaa isbuuca soo socda. dhammaadkiis she called her mom, waxay wacday hooyadeed right there in the cafe to share the good news. waxay wacday hooyadeed isla markiiba markay joogto kafeteriyada si ay la wadaagto wararka wanaagsan. the woman she met, Lisa, islaanta ay la kulmtay Lisa, I think her name was magaceeda ahayd even afford yani waxay usoo bandhigday to leave some furniture behind, inay ka tagto xoogaa alaab guriga ah, yani alaabaha guriga ku jira inay ugu tagto ay usoo bandhigday. markaasuu ku leeyahay that's incredible, taasi wax cajiib ah. it's like all her stress
يعني waxay og tahay xillimad tahay dhammaan stresska hayay and worry iyo walwalka just melted يعني uu dhalaalay waxaas kaleeto uu dhalaalay camal stresskeedii iyo walwalkeedii uu dhalaalay just melted away in one conversation ay ku dhalaaleen hal sheeko gudahooda ay ku dhalaaleen waxaas oo dhan stresskii iyo walwalkii si ku leedahay exactly and you know what the funniest detail is صح ma og tahay waxa tafsiisha uu qosolka badan ay tahay Asha almost didn't go to that cafe يعني عاشو inta ugu wada kafegaas ma aado she usually brings lunch from home inta ugu badan qadadeeda waxay ka keentaa guriga but she forgot it laakiin way ilowday shalay subaxa yesterday morning because her week has been so hectic sababta ay tahay isbuuceeda aad u mashquul badnaa markaasuu leeyahay so if she hadn't forgotten her lunch sidaas darteed haddii aysan ilaabi lahayn qadadeeda she never would have met Lisa weligeed lamaysan kulmi lahayn Lisa and she'd still be apartment hunting oo weli waxay ahaan lahayd waxay ku jiri lahayd guri raadinta markaas dhahaysaa right it's funny sax waa wax lagu qoslo how life works sometimes sida ay nolosha u shaqayso mararka qaarkood one small change in routine hal isbedel yar oo yani routiinka routine xilli macnaheedu waxyaasha mar kasta samaysid maalin kasta samaysid can lead to such a big difference ayaa u horseedaya farqi aad u weyn yani wax yar oo isbedel ah samaysid routiinkaaga maalin kasta waxyaasha samaysid wax badan farqi weyn sameyn kara markaas ku leeyahay that's a great way to look at it taasi waa hab fiican oo loo arko loo eego speaking of which anagoo saas ka hadleyna how are you handling all those reports sidee baad u maraysaa dhammaan warbixinadaas do you need any help ma u baahan tahay wax caawinimo ah markaasuu ku leeyahay actually it's really kind of you to offer run ahaantii waa mid u naxariis badan inaad rabtid inaad isaacidid inay caawisid I think I can manage waxaan u maleeyaa inaan sameyn karo gaajin karo but it might be worth staying a bit late tonight laakiin waxaa laga yaabaa inay mudan tahay inaan xoogaa soo caawa si aan head of things si aan uga hormaro waxyaasha warbixinta aan dhammaystiro camal ilaa macnatahay jumladda markaasi ku leedahay well if you change your mind hagaag haddii aad fakirkaaga beddesho just let me know kaliya ii sheeg sometimes a fresh set of eyes يعني indho oo daalay oo fresh noqday hadday noqdaan indhahaaga can make all the difference when you are feeling overwhelmed isbeddel keeni kara marka aad dareemayso culayska overwhelmed culays in la dareemo camal ilaa macna tahay markaas ku leeyahay I value that waa qiimeynaya hadalkaaga you know what hearing Asha's story ma ogtahay Asha qisadeeda makes me feel a bit better rab ahaanta ay dareemaysay xoogaa fiicnaan ah about this crazy week yani rab ahaantii ayaan dareenayaa xoogaa fiicnaan usbuucan waalan ku saabsan markaas ku leedahay really how so runtii sidee tahay saas anuu leeyahay well hagaag maybe something good will come out of all these calls yani waxaa laga yaabaa in wax wanaagsan ka soo bixi doonaan dhammaan foodadan dhacayo dhan maybe I will meet an important client yani waxaa laga yaabaa inaan la kulmi doono macaamiil muhiim ah or learn something new or who knows what else ama aan barto wax cusub ah ama aan wax kale inay noqon karaan yaa og ama yaa yaqaan wax kale yimkin inay noqdaan ilaa macnatahay jumladda si ku leedahay now that's the attitude I like to hear hadda taasi waa dabeecadda aan jeclahay inaan maqlo ee ku tiri you never know what coincidence may be waiting around the corner marna ma ogid waxa hediska ee laga yaabo inay ku sugayaan agagaarka exactly ku yiri thanks for sharing that story Noura I needed that outlook today dhab ahaan waad ku mahadsan tahay
sheekadaas inay ila wadaagtay Nuura. I needed that. Waa u baahnaa taas. Waa u baahnaa aragtidaas maanta. Markaas ku leedahay anytime, mar walba. Shall we get back to our hectic schedules? Mar walba ma ku laabannaa jadwalkeena mashquulka badan. Kaasusaanu ku leeyahay let's do it, but first I think I need another coffee. Aynu sameyno, laakiin marka hore waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay qahwo kale. darsigeena intaas ahaa. waxaan rajaynayaa faa'iido ka hesheen. Please like, subscribe kayga ilaawina, comment-kana ra'yigiina ii soo qora iyo darsiyaasha kale ay rabtiin inaan ii soo geliyo. waan is salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.